halkan waxaan kaga hadlayaa maanta nin ragana loo sheegi maayo waxa la nacasna loo sheegi maayo nin ragana waa ogi xalay aniga mobilkayga asay la hadlay ilaahay yaa buu ii keenay marun buu iska yiri Everland waa Everland tan maxay ahayd ilaa baalku $1 marka lacagtu dhamaato ayuu booran jiray hadda aniga ma waa mobilkayga Everland xameesha ku jira baan war xay qisadan goor dambana waa maanta waxaan ka hadlayaa insha Allah arrintan ka socota eelafweyn fadhigaab daraweyne areadaas waxaan ka hadlayaa arrintaa weeye arrintaa waxa weeyaan siday u socoto waxaan ka baqayaa in ciqaabi lagu soo dugo ilaahay cirkayna kaga keeno xajaar waaweyn oo dushayna kaga daadata sababtoo ah ilaahay baa quraankiisa ku sheegay wuxuu ilaahay sheegay fidmada way hurudaa waa xadiiskaas midha fidmada way hurudaa ninkii tooseena nacdala ku dhacdo waxa kale oo ilaahay inooga digay fidma ninkii sameeyay aan ku ogaan doonin ka feejigaada buu ilaahay meesha dulmi weyn baa ka dhacay dulmiga reer baa lagu sameeyay cid kale laguma sameyn dulmiga cid lagu sameeyay waa hal reer cid sameynaysaana waa reer badan oo waliba dawlad kaashanaya anigu markii hore waxaan ku hadlayaa oo aan halka ilaaway afka beesha garxajiso dhan hadday yihiin nimanka la yiraahdo gobdoon dhamaale ugu galbeedeeya iyo hadday yihiin Yoonis Muuse oo ugu bariyeeya luqadoodii aniga ayaa ku hadlaya maanta kelmadda aan leeyahay iskaga mid baan unay waxa ogtihiin in ilaa 5 jeer nimanka la yiraahdo Sacad Yoonis ee reerka halka degan habar jecelo oo iskarabsanaysa ay ku soo duuleen waliba musaabaqar ku duuleen oo ay dhulkoodii ku weerareen oo hantidoodii ku weerareen oo ay garab ka helayeen dawladihii jiray oo eedan la saaray mar walba Sacad Yoonis hadana la yiraahdo magbixiya weligay ma arag taariikhda mana wareysana kuma maqal indhana kuma arag dagaal caamul iskaga hor yimaado ilaa ma kala qaato wallahi ana weligay maqal inta Soomaaliya istilis waa meesha ka soo bartay ama aan ka maqlay weey mar walbana marka magta lagu xukumo ee hantidii baxday lagu xukumo ee ha yiraahdaan ayaa haddana markay lacagta horaantiisa qaataan weer ku soo qaadiyeen xigaalkood baan wayna waan daawarin nacsin ma inoo hay fariidnimo naga ma ahayn nacsin naga hay inta baa xadii baa la galiyay wallahi la mariyay madanimaku islaamba ma ahliyo anigu deesan isleeyahay ma aha muslimiin haddii muslimiin yihiin sababta dagaalkaas waxay bilaabeen shahrul xurum xilligii ay bilaabeen shahrul xurumka bilaal yaado ee saddexda ee isku xiriirsan mid kamid ah waxay ahayd haday dad islaamo diin haystay yihiin may bilaabeen bashar xurumka gaal islaam oo ka mamnuuc in la dagaalamaba waxay galeen intaas oo dhaarood ay mareen oo ay jabiyeen mar walba rag dawlad sheeganaya dad guurta sheeganaya intay socdaan tigayay oo oranayay labada beelood walaala ahi dagaalka joojiyaan war horta laba qof oo isdilay walaala ma aha qof maalkaaga dhacay oo naftaadii dilay walaala kula ma aha ehel kula ma aha laakiin ehel waxa kuwa walaal kuwa qof naftaada iyo maalkaaga badbaadinaya cadaalad darrada dhacday ee cuqubada halka ka dhacday ee reerka qura la isugu tagay ee dawladda shacab la isu kaashaday ee aan anaguna nacasnimadayada daawanaynay ee halka ka arkaynay marka hore dulmiga ka dhalanaya ilaahu naga nabadgeli baan leeyahay anaga kulliba uu dhacayaa ilaahay naga nabadgeliyo waxa kale aan leeyahay maanta warku uu soo urursan sideeda qalad ee dhacay ee reerka qura lagu sameeyay ee dawladdu dibadda ka riixaysay ee reerku sameeyay ee midna waxba laga qaban waayay haddii maanta aanan sideedii qalad iyo ka maanta taagan labadaba dawladdu iminka jirta aanay gelin reerkaas oo boon ku qaadin nimanka geystay oo rag iyo xoolaba ka xidhin oo laynin wallaahi inaan nabad la helayaa jirin oo hargeysana lagu fadhiin burcana lagu fadhiin eergaama lagu fadhiin eel wafooyintu colaad haaday iyo fadhigaabo reerka la weerar maalba anaga arkeen halkana nabad lagu joogay meel lagu joogay ha ku dawaqina taa afka garxajis baan ku hadlay wallaahi waa iskeen sinaysan waana diyaar garoobaysan iyo idinku xumaan dagaalku abtiyaashay
haddaa ilaahay gara weyda annagaa ilahay idin bari wallahi inaanu ilaahay idin bari maxamed kaahinna waxba yuu meeraysanin maxamed kaahin halkan yuu ku meeraysan ya annagana waxa weeye waxba yuu meeraysan war ilaahay intii qofka bilaadanka ilaahay lagaga samri karayo lagaga baqi karayo idinkaga baqanay waa hadhi weydeen baad baan idin siinay waa hadhi weydeen waa laydinka xishooday waa hadhi weydeen Somaliland oo dhan baan tixgelinay ummadnimada iyo dadnimada iyo walaalnimada waa la socday taas marada taas waa dawo dhali weydey warabtiyaal iska siiya abtiyaal iska siiya annaga shaar dawladaha noo soo qaadanay kolba waad ogtiin dagaal habar jecla gashay waan gol dheer ahayn oo keligood ahaayeen wallahi inay weliga dhicin arha sheegan iska hadlayaan walaa ayna maanu ka dhicin ima kana dawlad baa kugu laman tii kal shaalo kala ka dhacday ciidamadii dawladda iyo reer wada socda ayaa elef weyn dadkii weeraray maatadii laayay raggii meesha joogay ee jabhadda ahaa ee hadhaaga ha laayay saraakiishii laayay waxaas wax la eegan kara iyo waxaanu aqbali karo midna maaha waxaan u malaynayaa waxaan isaaqa la odhan jiray inaanu annaga mooye isaaq kalama jirin annagu nagamay dhacdeen oo nagama suuro gasheen laba reer oo walaalaha iyaga oo reeraha kale ah oo sidaas ugu kibrayo oo ninsaa u kibrayo inaanu eegano wallahi inaan dhacdeen waxbaan ku qaban lahay haddaanu nahay reer garxas ilaado isaaqow intiina kale maata ahaydeen anaan raggiisoo isaaq un baanu hayn annagaa isaaq haynso waa xaal baqaata dad isaaq kalama ma jireen waxaan ku soo gebagabaynayaa nabadda uu garanayaan maanta ninkii raggii nacasna loo sheegi maayo nabaddu waxay ku xidhmaysaa ama heshiis ninkii doonayaa ku xidhi karaa waa in la galo biciide iyo maxmed nimanka la yidhaahdo muuse abakor wixii alle waxay faldembiyeed geysteen lagula xisaabtamo lagu qaado gacan lagu saaro taasunbaa heshiis ku dhici karaa nabadgelya la kulmi kartaa annagana waxna lagu weydiin karaa maanta sacad yunisna arrintaa ikhtiyaar buu uma leh ikhtiyaarna u yeelan maayo waa arrin ka go'da garxaji hadalku waa cadil waxaan idiin sheegayaa annagu dadka waxa weeye waa u samiraa oo u dulqaadanaa laakiin maanta wuu naga dhammaaday inaad ir dulqaadka ilaahay baan idinkaga baqan oo nagaga baqan weyde qalbigaanu idinka duunay xabadda waa nagu duwi weyde madaxaanu kaaga duunay waa nagu duwi weyde ya war haddaan madax iyo qalbiga kaaga dhufananaa u diyaargarooba intaa waxaan ku darayaa oo aan ku soo gebagabaynayaa ila hadalku khatim buu leeyahay ya bobolkina wakaa ilaahay leeyahay everland bar arrintaan u fiirsada waa mucjisa qolada suufiyaasha cabiri doonta awal $1 un bay odhan jireen moogta everland war bahasha miyaanu idinkula tukanaa reer nimankiina bahasha cunayow miyaanu idinkula tukanaa aaskaa dhigtay iilkaa dhigteen oo qabrigaa dhigteen laantii waa aragnaaye oo xitaa 18 may baa bedesheen wadinkaa qabriga dhigay adeerayaal ilma adeerayaal waxba midhaa ilma adeerayaal sumeeyeen dadka ilaahay su keenaynu waxay yeelaysaan war qabrigaa dhigteen annaga idinkula tukanaa janaasada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh